wararka caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda caawa waxaan ku soo qaadaynaa gebi ahaanba xiisadda ka jirta gobolka bariga dhexe dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Iiraan. aan ku bilaabe madaxweynaha Iiraan Ibrahim Ra'iisi oo goor dhaweyd hadlay ayaa sheegay in ciidamada dalkiisu ay beegsadeen qaar ka mid ah goobaha iyo saldhigyada ciidamada Israa'iil oo horey looga soo weeraray isla markaana ay cashar u dhigeen Israa'iil taasoo muujinaysa buu yiri in tacabir kasta oo cusub iyo isku day kasta oo lagu soo weeraro Iiraan uu la kulmi doono jawaab degdeg ah oo aad u adag. madaxweynaha Iiraan ayaa hadalkan jeediyay kadib markii Iiraan ay weerartay Israa'iil iyadoo diyaarado ku weerartay Israa'iil iyo gantaalo. madaxweynaha Iiraan oo arrinkan ka hadlaya waxa uu yiri Iiraan way tixgelinaysaa amniga iyo xasiloonida gobolka, laakiinse waxaa laga maarmaan u ah Iiraan sidii ay u sugi lahayd amnigeeda ayna u ilaashan lahayd maslaxadeeda. waxaanu adeegsan doonaa ayuu yiri dhammaan dadaaladayada si aan taas u hubino, isagoo tilmaamay in qof kasta uu hadda ogaaday ficilada Israa'iil inay khatar ku yihiin gobolka iyo caalamka amniga iyo nabadaba. Iiraan ayaa uga digtay Mareykanka inay garab siiso Israa'iil, taas beddelkeedana haddii ay dhacdo ay beegsan doonto Iiraan saldhigyada Mareykanka haddii USA ay taageerto dagaal kasta rogaal celisa oo Israa'iil ku soo qaado Iiraan. taliyaha ilaalada kacaanka Iiraan Major General Hussein Salami ayaa waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay qaadi kareen howlgal ka ballaaran kii xalayto, laakiin wuxuu yiri waxaan ogaanay bartilmaameedyo gaar ah. howlgalkeenu wuxuu ahaa mid xadidan oo lagu guuleystay danihii laga lahaa. waxaanuna garaacnay ayuu yiri goobihii ay ka bilowdeen bartilmaameedsigayagii lagu soo beegsaday qunsuliyadda Iiraan ee Suuriya. dhinaca kalena warbaahinta Israa'iil ayaa goor dhaweyd sheegtay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ku amray golihiisa wasiirada in aysan wax hadala ka bixin ama aysan bixin waraysiyo saxaafadeed oo ku saabsan dagaalkii xalayta Iiraan ay ku qaaday Israa'iil. arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo uu bilowday kalfadhiga golaha dagaalka ee Israa'iil si looga wada hadlo fursadaha loogu jawaabayo Iiraan. gelinkii hore ee maanta warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in kulanka looga hadlay jawaab celinta weerarkii argoosiga ahaa ee ay Iiraan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku garaacday Israa'iil xalayto. golaha arrimaha siyaasadda iyo amniga ee Israa'iil oo maanta kulmay kadib shir ay yeesheen golaha dagaalka oo ka dhacay xafiis ku yaala dhulka hoostiisa oo ay leedahay wasaaradda difaaca ee Israa'iil kuna yeela magaalada Tel Aviv, sida uu sheegay wargeyska Haaretz. waxaa in badan falanqeeyayaasha iyo warbaahinta dunidu ay isweydiinaysaa Israa'iil weerar jawaab ah ma uu qorshaysan yahay kadib gantaalihii Iiraan xalayto hurdada u diiday Israa'iil. inkasta oo militariga Israa'iil ay sheegeen in 99% gantaalihii lagu soo tuuray xalayto iyo diyaaradihii aan duuliyaha lahayn ee Iiraan la qabtay iyagoo aan gaarin halkii loo dan lahaa. Iiraan ayaa sheegtay in weerarkan uu jawaab u ahaa weerar lagu qaaday dhismo diblomaasiyadeed oo Iiraan ku lahayd Syria 2 toddobaad ka hor. haddaba halka xaaladuhu ku dambayn doonto waxay ku xiran tahay go'aanka ay Israa'iil ka qaadato sidii ay uga jawaabi lahayd weerarkii culus ee xalayto. wadamada gobolka iyo meelo kaleba oo ku yaala oo ay ka mid yihiin kuwa aan jeclayn nidaamka ka taliya Iiraan ayaa waxay ku boorinayaan Iiraan inay isxakamayso. mowqifka Iiraan ee hadda ayaa ah xaalku waa degan yahay, hawshiina intaas ayay ku dhammaatay, waxna ha soo tuurina haddii kale mid tan ka daran oo aydan ka soo waaqsan ayaa idinku dhici doonta. balse Israa'iil mar hore ayay wacad ku martay inay jawaab adag bixin doonto. dowladda haatan ka talisay Israa'iil waxa loogu yeeraa tii ugu adkeyd ee soo martay Israa'iil. golaha dagaalka Israa'iil waxay u badan tahay in jawaab la'aan aysan uga harin weerarkii tooska ahaa xalayta ee Iiraan. ha yeeshee waxaa xadidmay waxyeeladii uu ka geysan lahaa dhulka. muxuu yahay mowqifka Israa'iil? waxa laga yaabaa in Israa'iil ay dhegaysato waxa ay u sheegaan dariskeeda gobolka
oo ay samayso waxa loo yaqaano dulqaadka istiraatiijiga oo iska dayso inay jawaab bixiso, balse taas beddelkeeda ay beegsato kooxaha gobolka ee xulafada la ah Iiraan sida ururka Xisbullah ee Lubnaan ama xarumaha ay hubka dhigatay ee ku yaala Syria, taasoo muddo dheerba ay samaynaysay. sidoo kale Israa'iil ayaa laga yaabaa inay qaado weeraro aargudasho oo xiriira, kuwaas oo si taxadar leh loo qorsheeyay lana isticmaalayo gantaalada ridada dheer, kuwaas oo la beegsanayo oo kaliya saldhigyadii xalay laga soo tiiray madaafiicda. taasi waxay Iiraan ula muuqan doontaa xiisadda oo la sii kicinayo, maadaama ay noqon doonto markii ugu horeysay oo Israa'iil ay si toos u weerarayso Iiraan sida ay ku samayso kooxaha ay taageertay ee gobolka. ama waxaa laga yaabaa Israa'iil inay hal tallaabo sii korto jaranjarada xiisadda sii kacaysa, iyadoo sii ballaarinaysa jawaabteeda suurtagalka ah, iyadoo beegsan karta saldhigyo, xerooyin tababar iyo xarumo halis ah iyo kuwo hagis oo ay iska leeyihiin ciidamada awoodda badan ee ilaalada kacaanka ee Iiraan. labada khiyaar ee ugu dambeeya kii ay doorataba wuxuu halis gelin karaa in xaalku sii xumaado oo Iiraan mar kale ay aargudasho samaysato. su-aashu waxay tahay, haddii Israa'iil ay toos ugu qaado weerar aargudasho ah Iiraan, Maraykanku ma ku soo biiraya dagaalka? taasna waxaa loo arkayaa dagaal toos oo dhex mari kara Iiraan iyo ciidamada Maraykanka ka jooga gobolka. Maraykanku wuxuu saldhigyo militari ku leeyahay dhammaan 6 waddan ee ku yaala gacanka Carbeed iyo sidoo kale Syria, Ciraaq iyo Jordan. ciidamada oo dhan waxaa beegsan kara gantaalada culus ee kaydsan ee balaastiga ah iyo kuwa kale ee muddada ay sameynaysay Iiraan, iyadoo aan u joojinayn xayiraadda caalamiga ah ee la saaray. Iiraan ayaa sidoo kale waxay samayn doontaa arrin ay muddo dheerba ku hanjabaysay, waxayna isku dayi kartaa inay xirto gacanka istiraatiijiga ee Hormuz, iyadoo isticmaalaysa miinooyin, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo doomiyaha dheereeya ee dagaalka, iyadoo cunaha qaban doonto ku dhowaad rubuc shidaalka adduunka laga isticmaalo. taasina waa filasho aad mugdi u ah, taasoo dagaal ballaaran isugu keeni karta Maraykanka iyo wadamada khaliijka ee gobolkaas, taasoo ay waqti xaadirkan isku dayayaan wadamo badani inay baajiyaan. dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Ruushka Dmitry Medvedev ayaa sheegay in dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil uu hoos u dhigi doono oo uu jab ku yahay madaxweyne Biden in mar kale dib loogu doorto xilka madaxweynaha Maraykanka. madaxweynihii hore Ruushka Dmitry Medvedev oo arrinkan ka hadlaya waxa uu yiri, Maraykanku ma rabo dagaal weyn oo ka dhaca bariga dhexe. dilalka Gaza ayaa yareynaya fursadaha madaxweyne Biden ee doorashooyinka soo socda iyo dagaalka ka dhex qarxay Israa'iil iyo Iiraan. taasina waxay horseedi doontaa shaki badan oo ku saabsan in mar kale dib loo doorto madaxweyne Biden. hadalka madaxweynihii hore Ruushka Dmitry Medvedev ayaa yimid saacado kadib weerar aan horey loo arag oo ay Iiraan ku qaaday Israa'iil, kaasoo loo adeegsaday boqolaal gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, oo ay Israa'iil sheegtay inay ku guuleysatay intooda badan inay ka hortagto weerarkaas iyadoo aan la diiwaan gelin khasaaro weyn oo la sheego. iminkana war hadda soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa sida ay qorayso shabakadda Al Jazeera in ay war soo saareen golaha dagaalka ee Israa'iil. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa iminka waxa uu ku dhawaaqay in Israa'iil ay go'aansatay inay si degdeg ah ay uga jawaabto weerarkii xalayto ay Iiraan ku soo qaaday Israa'iil. intaasna waxaa ku eg wararkii caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda aan caawa ku soo qaadanay xiisadda bariga dhexe, gaar ahaan dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil. waa Cabdisaaq Jubbaland, intaan dib u kulmayno, nabadgelyo.